الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed shacabkeerisi insha Allah dhamaantiin guul halkan waxa taagan qaybo kamid ah ciidankii urka lixaad ee guul wada ee daraawishta oo qaybta ah beesha Xuseen Saciid oo ciidankeeda halkan taagan yahay oo laba qaybooda oo laba rugna ay tahay dhaman saar rugna ay tahay aag hore gobolka Sool waxaan iga dambeeyaa waa ciidankii beesha mas'uuliyiinta gobolka Cayn cid kasta ay qusayso iyo maamulka ciidankan wuxuu diyaar yahay shaqo wuxuu halkan u joogaa si waajibaadkiisa iyo amartiisa shaqadiisa ugu dalaa taas waa qodobka koowaad waxaan leeyahay inuu hadal ma aha imrisna arag ma ciidankii waa kan ururka lixaad waana joogaa wuxuuna ka dhinac dagaalamayaa qaybo kamid ah ciidanka beesha Xuseen Saciid oo difaaca kula jira oo isla beeshoodiya maamulkan argagixisada ee rejiimka ee ku soo saldhigtay gobolka Sool insha Allah waa ka guuleysanayna dhamaanteen guul waxaan u rajaynayaa si dhamaanteen meeshan waxa ku dagaalamaya laba qodob labada qofna Ilaahay ma simin waa qof wiil qalasa iyo khaniis baa meesha ku dagaalamaya qoom insha Allah guushna waa dhankeena mana sinna dadkani marka wiilka qalaska dadkan Ilaahay meesha laga kala jarlaano anaguna nagu beeray mana ogolaanayno marka insha Allah waxaan qoraynaynaa Hargeysa Berbera Burco iyaga u baahan wax ka dulqaado maamulkan qoomuluudka oo sura calanka Soomaaliya iyaga u baahan xornimo annagana insha Allah bidnillaahi kariim xoreynayna oo ka xoreynayna argagixisada rejiimka saldhigatay shacabka inay dhiigooda cabaan una taagan hariyo habeen inaan ka difaacno waxaanu halkan u saaranahay aanu joognaa aanu u difaacayna aanu ka difaacayna iyaga weeye iyaga qudhooda waxa leeyahay warbaliha iskarteero nimanku iyagaba aan ahayn dad islaam oo saamnimo lagu sheegi kara mar haddii aan la ogolayn masaajidka salaada jimcaha loo ansixinayo qoomuluudkii la faafinayo iyagaba u baahan xoreyn shacabka nasaasaan leeyahay kaydin ku sheegay ayuu yaa hadda garabkayga taagan iskiisu yahay gobolka Cayn magaalada Buuhoodle ka soo kicimay in badan ku sugnaa jiidahan gobolka Sool kuna sii sugnaan doona hadeerna ku sugan ciidamada markii ay soo galeen jiidahan ciidan kasta oo ciidan qarani markuu jiidahan soo galay wuxuu ma garanaysaa loo kala baxay qaab beeleed oo loo kala degdegan yahay ciidankani waa ka qayb kamida sababtaas halkan u joogaa oo qaabeeleed buu halkan u joogaa wuuna ku sugnaanayaa jiida insha Allah hadii Ilaahay yiraahdana cadawgan soo duulay ee wadankeena doonaya inuu gumaysto isaga dayacan isagaana jilicsan isaga dhaxan iyo bacad iyo ciriid ku sugan iyo gaajo raggani hilib iyo caano uu ku dagaalamaya iyo subag waxaan ku yiri cadawgaas isaga dayacan insha Allah xabaddooduna tii shalay hadday wax la yeeli weyday waligeed xabad cadawgaas riday waxba la yeeli mayso markii lagu ridaana waxba kuma kala qarsoona dadka shalay aan balaastii kureysay waan eegaynay saasaan u daawanaynay cadawgaas insha Allah Ilaahay uu noo nasakhay wuuna noo nasakhi doonaa waana ka guuleysanaa insha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waa ka guuleysanaa cadawga wabillahi